سلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرويني مدن يالدمانتين به ميل والبو ضافها الدنيا أتكتشوكتان رمضان كريم هالكني وتلفزيون الصومالي دي إثيوبيا حرونتي سمجالدنا تشيكتشيجا أخياري هذا نوكلنا واحد قاعدين نوجبرتين وررك تلفزيون الصومالي دي إثيوبيا نكو تلاقلي إن أتصل صدور لها تان قضبضة وجود دورنا وحكمده madaxweyne ku-xigeenka ahna wasiirka xafiiska caafimaadka dawladda deegaanka Soomaalida oo kulan wada xaajooda la yeeshay madaxafiisyada caafimaadka iyo waliba kuwa maaliyadaha ee degmooyinka deegaanka Soomaalida xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga ee dawladda deegaanka Soomaalida oo shir u qabtay madaxafiisyada beeraha ee degmooyinka deegaanka Soomaalida iskaashatada halgan oo ay ku midoobeen qaar ka mid ah haweenka oo ragooda nabaddiid ku laayay oo konton qoys oo agoon oo ku dhaqan degmadaasi qabri bayax kaalmo raashin gaarsiiyay akhyari qodobadaasi ayaa ugu doorroona qodobadani iyo qodobo kale oo faahfaahsan u diyaar garooba markale ismaqal aragti wanaagsan akhyaarta hawada inoogu helan meel walba aad ku sugantihiin ku soo dhawaada wararkii telefishinka Soomaalida Itoobiya ku talagalay isagii oo faahfaahsan madaxweyne ku-xigeenka ahna wasiirka xafiiska caafimaadka ee dawladda deegaanka Soomaalida ayaa kulan wada xaajooda la yeeshay madaxafiisyada caafimaadka iyo waliba kuwa maaliyadaha degmooyinka deegaanka Soomaalida warumurtaasi ku saabsan waxa inoo hayo waryaheena Caaqil Gamaadiid madaxweyne ku-xigeenka dawladda deegaanka Soomaalida ahna wasiirka caafimaadka mudane Cabdifataax Maxamuud Xasan ayaa waxa uu kulan wada xaajooda kula yeeshay hoolka shirarka ee cilmi baarista ee magaalada Jijjiga madaxafiisyada caafimaadka iyo kuwa maaliyadda ee degmooyinka dawladda deegaanka Soomaalida kulankan ayaa ujeedada ugu weyn laga leeyahay waxa ay tahay sidii loo dardargelin lahaa wada shaqaynta ka dhaxaysa xafiisyada heer deegaan iyo kuwa degmooyinka iyo in bulshooyinka ku nool deegaanka Soomaalida ay helaan adeeg hufan madaxweyne ku-xigeenka dawladda deegaanka Soomaalida ahna wasiirka caafimaadka mudane Cabdifataax Maxamuud Xasan ayaa waxa kaasi ugu soo jeediyay mas'uuliyiintan xafiisyada heer degmo ee dawladda deegaanka Soomaalida hadallo dardaaran dhiirigelin iyo waano u badan xafiiska caafimaadka ee degmada madaxafiisyada caafimaadka ee degmada wuxuu mas'uul ka yahay caafimaadka degmadaas uu mas'uul ka yahay shaqada laga sugayo waxa weeyaan guud ahaan ka warhaynta iyo taabagelinta caafimaadka degmadaas weeyaan waxaan u jeedaa qofka xafiiska caafimaadka degmada ka ah madaxafiisyada mas'uuliyad baa saaran mas'uuliyad ta ugu yar iyo ta ugu weyn bay isaga saaranta annagu waxaanu kala qaadanay corporate kasta inay ka muuqato health facility corporate ka jirta xafiiska caafimaadka tusaale ahaan waxaa health promotion ka kamid ah oo inay ka muuqato adeeg kasta oo la bixinayo degmada bulshada ay u baahan tahay in laga bixiyo health post iyo health center idinkuna inaad kula xisaabtaan baa loo baahan waxa kale oo iyaguna hadallo ka yidhi kulankan wada tashiga ah madaxafiisyada degmooyinka qaarkood kuwaas oo ka hadlay inay sii xoojinayaan waajibaadka saaran iyo waxqabadka laga sugayo waxa ayna ballan qaadeen mas'uuliyiintan xafiisyada ee heer degmo in adeegga hufan ee bulshada loo fidinayo ay sii labanlaabi doonaan kulankan ayaa waxaa lagu lafaguray oo laguna falanqeeyey adeegyada shacabka loo fidinayo inay ahaadaan kuwo si cadcadaan iyo isla xisaabtan uu ka muuqdo kuna salaysan nidaamka BPR-ka iyada oo isla mar ahaantaana la xoogaynayo ka qaybgalka bulshada kulankan ayaa waxa uu ku soo beegmay iyada oo kulankii qiimeynta maamulada iyo xafiisyada degmooyinka ee dawladda deegaanka Soomaalida uu ka dhacay dhawaan kana soo afjarmay magaalada Jijjiga waxa kale oo ku soo beegmay sanadkan oo ah sanad guul fiican laga soo hiyay waxqabadka asaasiga ah nolosha bulshada sida caafimaadka waxbarashada biyaha iyo wax soo saarka beeraha xafiiska beeraha xoolaha iyo horumarinta reer miyiga ee dawladda deegaanka Soomaalida ayaa shir u qabtay madaxafiisyada beeraha ee degmooyinka deegaanka warumurtaasi ku saabsan waxa inoo eegaya waryaheena Maxamed Xasan Cabdullaahi
shirkan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga ee heer deegaan madaxafiisyada beeraha ee degmooyinka kala duwan ee uga kooban yahay deegaanka oo ay ujeedadiisu ahayd kamira dhalinta qorshayaasha 2005 ee tirsiga Itoobiya ee u degsan xafiisyada beeraha heerarkooda kala duwan si xoojinta xiriirka wada shaqaynta ee ka dhaxeeya xafiisyada beeraha ee degmooyinka iyo kan heer deegaan si bulshada loogu fidiyo adeeg hufan oo dhinaca beeraha ayaa waxa furitaanka shirkani ka hadlay wasiir ku-xigeenka xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga mudane Cabdiqaadir Maxamed Faarax isagoo ugu horeyntii u mahadceliyay dhammaan xubnihii ka soo qayb galay kulankani kadibna sheegay in lagama maarmaan ay tahay in la sii xoojiyo wada shaqaynta xafiisyada beeraha ee degmooyinka iyo kan heer deegaan si loo ogaado waxqabadka xafiisyada beeraha ee degmooyinka wasiir ku-xigeenka ayaa wuxuu intaasi sii raaciyay in xukuumadda dawladda Soomaaliya ay dejisay qorshe cad oo ay xukuumaddu ku doonayso in gabi ahaanba bulshada deegaanka looga saarayo saboolnimada loogana baahan yahay madaxafiisyada beeraha ee degmooyinka in ay ka soo baxaan waajibaadkooda shaqo dhankiisa mar uu u waramayay ESTV wasiirka xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga ee dawladda Soomaalida Dr. Cabdiqaadir Iimaan ayaa waxa uu sheegay dhammaan degmooyinka uu deegaankeenu ka kooban yahay ee ah 68 agaasimayaasha xafiiska ay ka soo qayb qaateen ujeedaduna waxay ahayd waa marka koowaad dardaaran bayd maadaama sanad miisaaniyad cusub oo 2005 aan galayno qorshayaasha hadaan ku heshiinay sidii loo dhaqan galin lahaa talabaad waxay ahayd dhibaatooyinkii ka muuqday qorshihii 2004 sidii xal loogu heli lahaa isla markaana dhibaatooyinkaas ay u noqon lahaayeen kuwa aan u soo noqon sanadka 2005 haddana waxaanu ku heshiinay marka in qorshe midaysan oo xafiiska xoolaha iyo beeraha heer deegaan iyo heer degmo la sameeyo kaasna noodka lagu wada shaqeynayo cid kastana lagu la xisaabtamayo shirkani ayaa inta uu socodin lagu lafaguray dhibaatooyinka la soo darsi kara xafiisyada beeraha ee heer degmo iyo habka loo furdaamin karo dhibaatooyinkaasi waxayna isla qaateen ka soo qaybgalayaasha shirkani iyo mas'uuliyiintii hogaaminaysay in hal meel ah looga soo wada jeesto caqabadaha ka hor iman kara qorshayaasha u degsan xafiisyada beeraha isla markaana loo fuliyo sidii loo baahnaa qorshayaasha 2005 ee tirsiga Itoobiya ee xafiisyada iminka u degsan waana kuban qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaashii kulankani oo ka warbixinaya habka uu dhacay shirkan maanta aan ku gudad jirno waxa weeyaan guud ahaan 2004 wax qabadkii aan soo qabanay heer degmo iyo heer deegaanba guud ahaan maadaama soo gabagabayno dhameystirnay una gudbayno sanadkii cusbaaye 2005 waxaan si ballaaran iskula eegnay wax qabadkii 2004 qaabkay u qabsoomeen dhibaatooyinkii jiray xalkii aan kaga gudubnay dhammaantoodba si qodob ayaan iskula eegnay oo shirkan ku wada eegnay waxa kale oo handana uu ahmiyad gaar ah u leeyahay oo ka wada eegaynaa oo ka wada tashanayna qorshihii 2005 diyaarintiisii baan si guud u wada diyaarinay heer degmiye heer deegaanba oo u dhannahay baan wada diyaarinay meelihii dhibaatooyinka ka jireen baan isla eegnay waxayna shirkan gabagabadiisii hadda aan ku guda jirno waxaan isla eegnay dhammaan dhibaatooyinkii aan ka aragnay 2004 annagoo wax ka baranayna 2005 inaan dardargelin ballaaran aan u qaadano oon siiba ahaan xafiisyadii beeraha sektaradii beeraha saan u dardargelinahayn ayaan qorshe ballaaran ku kala qaadanay waa shir sanadeedkii aan ku kulmi lahayn xafiis beerahan iyadoon ka wada hadlayna dhibaatooyinkii sanadkan aan soo marnay si macnaha 2005 xalkoogii loo helo oo macnaha mar labaad aynu soo noqon iyadoo dhibaatooyinka loo kala qaaday heer degmo dhibaatooyin lahaayeen iyo heer deegaan dhibaatooyinka lahaayeen kadibna iyadoon kala saarnay isla markaana degmo ahaan dhibaatooyin aan qaadanay jireen isla markaana xal deegaan ka keenay isla garanay heer deegaan dhibaatooyinka ay lahaayeen iyagana ay qaateen isla markaana xal inay ka keenay iyagana loogu baahan yahay waxa kale oo iyadan ay naga caawinaya qorshihii oo si wada jira ku sameynay sanadka hore marka loo eego sanadkan iyadoo xafiiska heer deegaan iyadoo la joogaan qorshihii sameynay waxyaabaha iyaga inoo qabanayaan xafiis deegaan ahaan iyadan meesha ku cad yihiin xafiiska beeraha degmada sayn wuxuu qabsanaya meesha ay ku cad yihiin isla markaana cid walba iyadoo waajibaadkeegii iyo sanadka 2005 wax maarad looga baahnaa meesha ay ku cad yihiin shirkani oo ka qabsoomay hoolka shirarka ee xafiiska arrimaha haweenka carruurta iyo dhalinyarada ee dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu qayb ka yahay shirarka uu qabanayo xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga ee dawladda deegaanka Soomaalida uu ku doonayo xafiiska in bulshada u badan xoolo dhaqatada ee ku dhaqan deegaanka ay helaan adeeg hufan oo dhinaca beeraha isla markaana ay noqdaan madaxafiisyada beeraha ee degmooyinka kuwa markaas sidii loo baahnaa ugu adeega bulshada ku dhaqan deegaanka
hay-adda horumarinta iyo gargaarka haweenka Soomaalida Itoobiya ee qurbo joogta ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano SIWED ayaa 21,000 oo buugta wax lagu bartaa soo gaarsiiyay xafiiska waxbarashada dawladda deegaanka Soomaalida. buugtaasina waxay ku baxday lacag gaaraysa 200,000 oo bir. warkaasi waxay noo eegaysaa waryaheena Hani Daahir Axmed. hay-adda horumarinta gargaarka ee haweenka Soomaalida Itoobiya loo yaqaan SIWED Foundation ayaa 21,000 oo buug soo gaarsiisay xafiiska waxbarashada dawladda deegaanka Soomaalida. munaasabadan lagu kala wareejinayay buugaagta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin heer deegaan iyo maamulka hay-adda SIWED. ayaa waxaa ugu horeyntii munaasabadan halkaasi hadallo kooban oo dhan walba taabanaya ka soo jeediyay wasiir ku-xigeenka xafiiska waxbarashada mudane Abubakar Maxamed Khaliif. maanta waxaa farxad weyn noo ah oo guul aan gaarnay ah in buugaagtii waddanka Mareykanka laga soo raray ee in muddo ay jid ku soo jirtay inay maanta soo gaareen dawladdaanka Soomaalida xaruntiisii halka oo ay aan kala wareegayno maanta gabdhaha ururka SEWDA oo la yiraahdo Somali Ethiopian Women Association Foundation. marka gabdhihiina waa kuwana buugaagtiina waa la keenay. tirada buugaagtan waxay dhan tahay 22,000 oo isku jirto xisaab iyo sayniskii iyo Englishka intii oo dhan. dhanka kaleedna waxaa goobtaasi ka hadashay wasiiradda xafiiska arrimaha haweenka dhalinyarada iyo dhalaanka dawladda deegaanka Soomaalida Marwar Raxmo Suldaan Maxamuud Haybe. marka waxaan leeyahay ku soo dhawaada dalkiina sidan aad u garateen maartay buugtan ardadiina iyo agoontiina aad uga qayb qaadanaysaan aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin iyo dawladdiinii aad fahanteen iyo ardadiinii aad fahanteen inay baahantahay baahidoodii maanta intaad garateen aad ka soo turjumanteen. intaa kadib ayaa waxayna halkaasi hadallo kooban ka soo jeedisay gudoomiye ku-xigeenka hay-adda SIWED Marwo Canab Cali oo ay ku wehelinaysay afayeenka hay-adda SIWED Marwo Aamina Siraad. buugaagtan oo naga qaadatay waqti aan filaynin ilaahay idinkiis ma sha Allah haddana ay nala joogto ayaan ku xamdinaynaa hawshii adkayd ee soo marnay ururkii dhamaa ee Mareykanka joogay shaqadiinii aad qabateen iyo wanaagii aad soo gudateen maanta waad aragtaan waa guushi waan gaarnay dawladdeena way hanatay ciyaalkiina way hananayaan marka insha Allah dawladana waa mahad celinaynaa wasiirada iyo dadkii nala shaqeeyay oo noo fududeeyay hawshan oo dhan. buugtan ayaa waxa ay iskugu jireen fasalka koobaad ilaa iyo fasalka 12aad iyo walibana buugaag loogu talagalay macadada ama baakuliyadaha. buugaagtan ayaa waxaa ku baxday lacag dhan 200,000 oo bir. dhawaan hay-adan ayaa waxa ay hirgelisay isla markaasina ay bilowday library ay ugu talagashay ardayda ku xareysan dugsiga hoyga agoomaha ay waalid tireen ururka nabadiidka UBO. dhankooga ayaa waxaa shahaado sharaf la guddoonsiiyay haweenkii ka socday hay-adan SIWED. halkaad wararkaasi akhyaari aad ka daawanaysaan waa telefishinka Soomaalida Itoobiya xaruntiisa magaalada Jigjiga. iskaashatada halgan oo ay ku midoobeen qaar ka mid ah haweenka raggoodu nabadiid ku laayay ayaa 50 qoys oo iyaguna agoonta raggoodu nabadiid ku laayay gaarsiiyay kaalmo raashina. gudoomiyaha iskaashatada halgan Marwo Naciime Maxamuud Haybe ayaa kadib markii ay guddoonsiisay kalmadan raashinka oo isugu jirtay bariis daqiiq saliid iyo waliba noocyo kale oo sharaabka lacaba ayaa waxay tilmaantay inay aad ugu faraxsan tahay in iskaashatada halgan oo ay ku midoobeen xubno hore ay u agoomayeen nabadiidku in ay kalmo gaarsiiyaan qoysaskani agoonta ee ku dhaqan degmadaasi Qabri Bayax. waxaan ugu talagalay bishan barakeysan deeq aan ugu talagalay haweenkii raggooda nabadiidku laayay kuwaas oo ma garanaysa ay ku nool degmada Qabri Bayax ayaa waxaan soo gaarsiinay raashin isugu jira 4 nooc bariis 50 kiilo iyo bur 50 kiilo iyo saliid iyo sharaabkii kuwaas oo ugu talagalay maadaama dawladdu maadaama dawladdu ugu jirto dadaal xoogan sida agoonta wax loogu qaban lahaa waxna loo tar lahaa ayaan anaguna waxaan go'aansanay inaan aanu ka qayb qaadano oo dawladda garab istaagno maadaama anaga dawladda ay ilna xariiseed nagu eegto anaguna waxaan ilna xariisad ugu eegnay kuwii naga jilicsanaa anaga nala midka ahaa naga si jilicsanaa ayaan anaguna ilna xariisad ugu eegnay marka waxaan u mahadnaqayaa dawladda
marwada oo hadalkeeda sii wadata ayaa carabka ku adkaysay in lagama maarmaan tahay in bulshada dhexdeeda istaageerto isla markaasina laga maarmo kalmada gacan shisheeye ka timaada waxaana ay mahadnaq u soo jeedisay iyadoo ku hadlaysa magaceeda iyo weliba magaca iskaashatada halgan taageerada aan kala go'a lahayn ee ay xukuumadda iyo weliba bulshada qaybaheeda kala duwan la garab taagan yihiin dadka ay waxyeelayeen kooxda xagjirka ah ee ubo isla markaasina ay dowladda dalkan Itoobiya u aqoonsatay argagixiso iskaashatada halgan oo ku howlan soo dejinta raashinka canshuur dhaafka ayaa sida ay mas'uulku sheegtay in iskaashatadu macaashka ay hesho markasta ay diyaar u tahay inay la qaybsato dadka ay dhibaatada ka soo gaadhay nabaddiidku gudoomiyaha degmada Qabri Bayax Mudane Cabdifataax Xasan oo goobjoog ka ahaa munaasabadii kaalmada lagu guddoonsiinayay qoysaskani agoonta ee ku dhaqan degmadaasi Qabri Bayax ayaa amaanay kaalinta hormuudka ugu tahay iskaashatada halgan istaageerida bulshada dhexdeeda isla markaasina loo baahan yahay ayuu yiri inay ku daydaan iskaashatooyinka kale ee ka jira degmada iyo waliba guud ahaan deegaanka run ahaantii arrintan maanta muxuu ahaayay taageerada ay noo keeneen iskaashatada halgan ee agoonta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay haddii aan nahay maamulkii run ahaantii arrintani waa arrin muxuu ahaa barnaamij cusub nagu ah waa agoon caawinaysa isla markaana waxaan barnaamij ahaan iyo muxuu ahaayay baaq ahaanba bixin lahayn in iskaashatooyinka kale iyo hantiilayaasha kale ee deegaanka u dhashay intay tusaale ka qaataan arrintan inay ku daydaan isla markaana ay bal dib u fiiriyaan dadkii mad garanaysa halgamayaasha ahaa dadkii wadanka dhiigooda u huray in macnaha ubadkoodii iyo caruurtoodii iyo qoysaskoodii sidii loo caawin lahaa gacan bir loogu qaban lahaa isla markaana hanti iyo maal iyo muxuu ahaa nafba loogu hur lahaa iyaga inay bal dib intay u fiiriyaan arrinta ay ka qayb qaataan waan soo jeedin lahaa gudoomiyaha degmada Qabri Bayax Mudane Cabdifataax Xasan ayaa waxa uu intaasi ku daray in maamulka degmada Qabri Bayax uu dajiyay qorshayaal kala duwan oo ku caawinayo isla markaasina uu saboolnimada kaga saarayo dadka danyarta ee ku dhaqan degmadaasi Qabri Bayax qoysaskan kaalmada la gaarsiiyay ayaa dhinacooda tilmaamay in ay aad ugu faraxsan yihiin in taageero ay ka helaan agoon sidooda oo kala ah waxaanu nahay agoontii nabadiidku ka laayay aabahood iska dhibaataysnaa isaga baahnaa aad iyo aad baan ugu baahannahay uguna faraxsannahay gargaarka naloo keenay agoontayada nala midka ahayd ay noo keentay ilaahayna waxaan ka baryaynaa annagana ciyaalkayagu kuwa marxaladdaa gaadhay inay noqdaan dowladayada iyo shirkadda dhammaan waan ugu mahadnaqaynaa arrintani oo ah toan horey looga barin iskaashatooyinka ka jira deegaanka ayaa waxay tilmaameen qoysaskan in la gaarsiiyey deeqdani in la sii adkayo istaageersiga gudaha taasoo noloshooda wax ka bedelaysa guddiga sare ee culimada Itoobiya ayaa shaaciyay in bisha fooda inagu soo haysa guud ahaan dalkan Itoobiya ay ka dhici doonto doorashada muslimiinta golaha sare ee arrimaha islaamka golahan oo loo asaasay hirgelinta doorashada ayaa waxa ku cad jadwalka uu soo saaray in 25 bisha Naxaase ilaa iyo 5 bisha Maskaram guud ahaan wadanka oo dhan laga qaban doono doorashooyinka golaha sare ee arrimaha islaamka heerarkiisa kala duwan gudoomiye ku-xigeenka golaha sare ee arrimaha islaamka ee dowladda deegaanka Soomaalida Sheekh Maxamed Cumar Dhaqane ayaa sheegay in diyaar garow ballaaran ugu jiraan sidii doorashadani u noqon lahayd mid ay dhammaan muslimiinta deegaanka uga qayb qaataan gudoomiyaha oo ka hadlaya sababta in doorashadan golaha sare ee arrimaha islaamka la qabto markii ugu horeysay ayaa waxa uu yiri doorashadu saad sheegtay waxaynu filaynaa waqtigan dhow inay ka dhacdo guud ahaan dalkeenan Itoobiya inay ka dhacdo kulley waxa sababay doorashadu in ay dhacdana saad ogsoon tihiin waxa jira codsi ka yimid xagga shacabka muslimiinta ah qayb ka mid ah in majliska federaalka ama guud ahaanba in waxa weeyaan la doorto oo si cusub loo doorto codsi sidaas ah ayaa waxa weeyaan shacabweynaha muslimiinta Itoobiya intooda badan ama qayb ka mid ah ka yimid codsigii markaa dawladdu ay ka aqbashay xogayaha golaha sare ee arrimaha islaamka ee dowladda deegaanka Soomaalida Sheekh Maxamed Sheekh Cumar ayaa dhinaciisa sheegay in doorashadani micno weyn u leedahay dhammaan muslimiinta ku dhaqan dalkan Itoobiya si ay markaasi u helaan hogaamin sare oo ay bulshadu ku doorato codkeeda doorashadani oo sida uu sheegay xogayaha golaha sare ee arrimaha islaamka ee dowladda deegaanka Soomaalida ka dhici doonta qabaliyada ayaa waxay sahlaysaa inay u dhacdo si xasiloon iyo waliba nabadgelyo isla markaasina ay ka soo baxaan culimo aqoontooda diineed ay aad u sareyso ayadoo
ay ka madax banaan yihiin aragti siyaasadeed. mudane Junadiin Xamse Yuusuf oo xogayaha guddiga doorashada ayaa tilmaamay in doorashadan ay ku beegan tahay 25 bisha Naxaase 2004 ay ka qabsoomi doonto degmooyinka waliba tuulooyinka iyadoo 28 bisha Naxaase ay ka dhici doonto heer gobol isla markaasina 1 bisha Baaqome 2004 ay ka dhici doonto heer Kilil bisha Maskaram 5teeda 2005 ay ka dhici doonto doorashada xubnaha golaha sare ee arrimaha islaamka heer qaran. waxaana mas'uulku sheegay in uu guddigu wado diyaar garow ku aadan sidii doorashadani u dhici lahayd si habsami ah. guud ahaan wararkii telefishinka Soomaalida Itoobiya ku talagalay khiyaaray waa naga intaa waad ku mahadsantiin daawashadiina. anigoo Maxamed Xasan Xaashiya ayaa idin waramayay idinka u diyaar garoobaya qaybaha kale ee telefishinka idin ku talagalay. warkani warka xiga intaynu ku kulmi doona hadduu ee barraale ka noqdo. Ramadaan Kariim.